الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون اتقوا الله عباد الله. waxaanu maanta ka hadlaynaa hadii Ilaahay yiraahdo balaayo weyn oo aad khatar u ah oo aad aan uga warhayno dambigeeda aafadaasi oo reebaysa cawaaqib aad u xun oo aad dhibaato u ah dibkeeda oo dadka dhibaayo iyo ummadda ku dhibtoonayso in mujtamacaadkana aad u weyn yihiin waxaana weeye calaamad kamida calaamadaha lagu garto dadka liita ee shiraalul khalqiga ah dadka akhlaaqda xun calaamadaha lagu garto innaha aafatun namima wa aafada la yiraahdo ama macsiyada la yiraahdo ama dambiga la dhaho annamima isku dirdirka namimadu laba taariif bay leedahay taariifka koobaad waxa weeyaan naqlul kalaam min qawmin ila qawmin ala jihati al-ifsad wash-shar hadalka oo la guuriyo loo guuriyo qof kale ayadoo loola dan leeyahay hab oo fasaad iyo balaayo sheegid waxa kale oo lagu macneeyaa culimada qaar yiraahdeen waa tahriish bayna an-naas dadka oo balaayo la dhax dhigo loona saciyo loo socdo dadka dhaxdooda qas iyo lab ayadoo la isticmaalayo war hadalkaas haduu doono ha ahaado mid xaq oo sax noqdo waxa la isticmaali karaa hadal ama qoraal ama waxa la isticmaali karaa ishaaro ama calaamado iyo wixii la mid ah loola dan leeyahay in ummadda la fasaadiyo lisku salado culimada waxay ku ijmaacday isku waafaqday akhlaaqdaasi inay tahay akhlaaq aad u xun qofka namaamka isku dirdiraha bal waxa la isku waafaqay inay tahay dambiyada waaweyn mid kamida inuu yahay maxaa yeelay qofka namaamka isku dirdiraha ah waxa loogu goodiyo loo yaboohay عذاب قبرك الله يبوهاي سدان أركي دونه sidoo kale cadaabka weyn ee aakhirana waa sugaya culimadu waxay sheegeen hatta kutubta oo aqeedada oo waa lagu sheegay namaamkaasi sidoo khatar u yahay kitaabka Sheikh Maxamed ibn Abdul Wahhab oo kitaab tawxiid la yiraahdo markuu ka hadlayay baabu bayaan shay min anwaa'i sihr oo wax kamida sixirka asoo sheegayay waxa uu sheegay baabu ma jaa fi sihr ayuu ciwaankaas hoos keenay wuxuu soo arooriyay xadiiskii sahih muslim ku yaalay ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ala unabiyukum mal adha ma kaaga warama waxa la dhaho adha la yiraahdo ayn iyo daad iyo ha hiya namimatu alqalatu bayna an-nas wa namimada isku dirka dadka la isku diro waaye والعضه waxa lagu macneeyay as-sihr waay macnaha isku dirdirka ayaa wuxuu yahay waa nooc sixirka kamid oo noqday laana qofkii dhan oo fasaadka loo geeyay oo warka loo geeyay qofkani uu bedelayaa wuxuu ka bedelayaa qabiil ama qof ama koox ama dad buu ku dirayaa qofkii saameyn buu ku yeelanayaa laana asagoo sixray oo kala waay waxa uu leeyahay culimada ay yiraahdeen waxa loogu baxshay sixir looga dhigay laana namaamka xaqiiqatan shaqada uu qabanayo waa shaqadii saaxirka laakiin qaabka fasaadka iyo isku dirdirka iyo waiqaa'u lil furqa firqana uu keenayaa dadkii ayuu kala dilayaa
ilaan saaxirka dadku kala dilaa isku diraa labada qof oo isqabtay labada walaalaha ahayd labadii isdhashay buu saaxirka kala diraa Soomaan isku diraa oo kala geeya kana waa sidoo kale marka wuxuusan isticmaalaynin shaydaan buusan isticmaalaynin bas wuxuu faafinayaa wan nashru lil adawati mutashabah lil amal as-sahir bil ashad wuxuu isticmaalayaa cadaawada uu dadka isugu diraayo habka sixirka oo kale maye waa ka daran yahay Yahya ibn Abi Kathir wuxuu leeyahay Ilaahay ha u naxariistee يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر اسكو دردرها وحو فسادنا يا هل ساعة قدهود وحوصا ساحرك بلدن كفسادين كرين ما يقو فريتانا دعي اسكو دردر درادت ما يقو بلايا او شره او ضد باكله تغي فالنمام يعمل عمل الساحر النمام كو شقرة السحر كأيها يا بل أشد وكدريه لا حول ولا قوة إلا بالله بل وكدريه هيو سكوبا وقت كوبا أي كوبا بينا يا إن ضدنا أي سجود درايا إمام أحمد وحاو صاري حديث النبي إليه صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم ورم إذن كجا ورما دتك إذن كجو أخيار سن ما إذن شجع بلا يا رسول الله بعدين رسولك الله الناشك وحيدهن وحو النبي يجري صلى الله عليه وسلم وضد هداد أركتي دتك إلهي أتحسسني سدوي دتك إذن كجو أخيار سن مركاد أركتي إلهي بتحسسني سا ورم إذن شجع أبو النبي يجري كوا إذن كجو شربدن المشاؤون بالنميمة وكوا اسكو دردرك أصعنايا المفسدون بين الأحبة دتك ولا لها اسكو درايا أو هلاك نحدقايا دتك ولا لها لبا قبيل لبا قف لبا كوحوط لبا وحويان درس لبا وحويان اسقبتو لبا صاحبة أيو نحدقايا بلايو أيو نحدقايا أي الهلكة والمشقة بلايو مشقة والفتنة والشر شر بلايو دحدغايا نمامكا اسكو دردروه وحو استاغا عملك الشيطانكا نفتيسا ايو وحو uga raadi noqday daciifnimo ayu uga raadi noqday laana shaqada shaydaanku fuliya wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wa sallam hadiiski muslim ku yaalay عن جابر رضي الله تعالى عنهما جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ويه النبي قال له وحو يري إن الشيطان قد أيسا الشيطان كواكاقوستي المضدك مسلين تأيكو عابدان في جزيرة العرب دول كان حجاز يا مكة يا مدينة يا يمن دول كان أركتو جزيرة العرب اللي يراهدو أو أصل كمسلمين تأوه إن الشيطان لغو عابدو وحاويان أرنتاس وكاقوستي ولكن في التحريش بينهم لكن اسكو دريا لكن إن إسدقالان سيدا هذا دعضي لولك عربتا مسلمين تا سيدا دعيسو تحريش وحو شيطان كو قوليستي إنو اسكو درو اسكو در كاسني يا فلنا يا قف با فلنا يا اسكو درايا النمام اسكو در درالها مركا الشيطان بو وكيل كيهي شيطان شقاء قبان وايي وكاقوستي وحقبان كرا واسكو دردرها النمام وي وحي يراهدين عمل كان علماء وي وحي دهن عمل كان نمام كا وكدرن يهي وانا ككل يهي متك الشيطان كا لان الشيطان كا بالوسوسه بو استعمالها وسواس بو استعمالها وعمل النمام بالمواجهه ددكو تكتغايا فسادكي waaba kanba asoo qoraal ah asagoo soconaya asagoo waxa weeyaan si kala ah ummadii isku diraya dadkii buu baqaabilaya u tagtagaya waxa u yimid ninba waxa u yimid Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala wuxuu yiri hebel uu ka hadlaayay markaas wuxuu yiri warniyo ama wajada ash-shaytaanu rasuulan ghayrak shaydaan qof kale ma waayo adiga aan ahayn qof kale
shaydaan ma waayay oo adiga aan ahayn oo ma adiga ayuu ku soo isticmaalay shaydaan oo aniga rabtid inaad qof igu dirtid ninkii meeshuu ka cararay وخطورة النمام كأرنتيس دائما وحكو إيمانا في سورة الناصح الأمين الذي يريد لك الخير إنه وحفي عن نصيحه خير وكو شيء بوكو إيمانا لكن شر يبلايو يؤمت إنه كو قدره بؤس عضاء وف نصيحين أيو أو ضدك وحفي عن شيء أيو oo dadka la talinaayo buu iska dhigaya annamaam mujrim cadiim wa afaak athim waxa weeyaan waa dambiile weyn waa isku dirdire dambiile ahoo dadka hadalka u kala geynaya wuxuuna isku diraa dadka is yaqaano oo walaalaha qof aan is aqoonin iskuma diri karo shaqo iskuma lahane dadka walaalaha ah oo is yaqaano ayuu isku dirdiraya annamaam waxay leeyihiin culimadu jamiicul qaaduraat wasaqdo dhan qaaduraatul akhlaaq sayyi'ah akhlaaqda xun oo dhan ba ku kulansan ilaahi baa nabari doono subhanahu wa ta'ala namaam ilaahi subhanahu wa ta'ala na abuurtay een leh ayaa nabari doono oo quraankan ku arki doona wax kasto akhlaaq xun ah ayaa ku soo aroortay waqtiga oo nagu socdo daraadeed wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka uu ku yiri wala tud'i kull halafin mahin hammazin masha'in binamim manna'in lil khayri mu'tadin athim utullin ba'da dhalika zanim fi surati al-qalam ilaahay subhanahu wa ta'ala balsuun noo baray namaamkaasi bad arkaysa waxa uu leeyahay nabi maxamed sallallahu wa salaamu alayhi talayelin كل حلاف داربدن كلغيس مهين حقيرا دلي واي حقيرا ضعيفه awood kale iyo karti kale wax qabad kale ma lahan wax qabadkiisu dadkaasu ka dhax shaqeeya dadkaasu isku dirdira intaas way kartidiisu ilaahay baa noo sheegay waliba markuu warka gudbinayo waa dhaaranaya waxa uu leeyahay hamaazin waaye dadku duraya waxa manayaayo isha ka duro ama gacanta ku duro ama hadal ku duro mashaa'in binamim wuxuu u socod badan yahay isku dirdir waa soconaya habeenii maalin wuxuu u soconaya isku dirdir mannaa'in lil khayr wanaaga iyo horumarka iyo ficnaanta iyo ladnaanta iyo midnimada ayaa dhibayso mu'tadin athim mid xad gudub badan waaye dadka ku xad gudbaya dadka akhlaaqdoodii iyo dadnimadoodii iyo dadka mas'uuliyadoodii iyo dadka cirdigoodii ayuu ku xad gudbaya ma yaqaano qofkaanaad qarabatihiin qofkaanaad waxa weeyaan waa istaqaanaan war qofkaani waxa weeyaan saas maahan mu'tadin athim dambi gala waaye utullin waaye midda kale waa kibir iyo qooq baa ku jira bacda dhalika zanim ninka laga hadlay si gaara inta ka gadaal inuu wacel yahay ayaa la sheegay marka waxa astaamahaasi sida ilaahay uu sheegay subhanahu wa ta'ala ayaa ilaahay uu sheegay ayaa lagu yaqaan namaamka marka ilaahay inuu noo sheegay oo na baray ayaa nagu filan quraanka waxa kale oo ku arkaysa markay culimada fasirayeen wamra'atu hammalatal hatab salaantii abi lahab ee xaaskiisi xabaalaqaadka badneed waxay yiraahdeen culimada markay fasirayeen ay ifsaadan bayna an-nas dadkay fasaadinaysa wasumiyat hataban حطب لوغو بحشي حمالة الحطب لوغو بحشي لأنها وحي فافينيسي العداوة والبغضاء بين الناس ضدك أي نعب كل فافينيسي سيدا حابضة أي ugu dhaxfaafto dadka ugu dhaxfaafiso dabka ugu faafiso wanamimatu min al-adha namimadu isku dirka waa dibka dib weyn oo dadka muuminiinta haleelo oo fasaadiyo waaye waxa uu yiri nin ayaa waxa uu yimid ninkii markaas warwiye waxa la wariyay anna Suleymaan ibn Abdul Malik oo markaas amiir aha oo fadhiyo waxa la fadhiyay Zuhri oo caalim weyn ah baa la fadhiyay nin baa soo galay markaasuu Suleymaan waa amiirkii weey baa wuxuu yiri wariyaa waxa iga soo ka gaartay inaad aniga i xamanaysay
oo aad wax iga sheegaysay oo sidaa iyo sidaa inaad dhahaysay baa isoo kaa gaartay ninkii wuxuu yidhi maa facaltu walaa qultu war ma dhihin waxaas aniga hadalkaasna maanan odhan sulaymaan ibnu cabdimalik baa wuxuu leeyahay ina aladii akhbaranii ninka warka ii sheegay aniga saadiqun runlow waaye warka ninka ii keenay waa runlow meesha yaa fadhiyo caalim weyn baa fadhiyo faqaala zuhri baa yidhi war laa yakuunu namaam saadiqan isku dirdire saadiq ma noqdee u kaadi amiir u kaadi isku dirdire runlow ma noqdee markaasuu amiirkii sulaymaan ahaa sadaqta run baad sheegtuu yidhi uma qaala lirajul ninkii wuxuu ku yidhi idhab bisalaamin orod soco nabadgelyo caalim weyn baa fadhiyo maxaa yeele ninkan xataa hadduu warkuu keenay run yahay xataa wuxuu rabaa fasaad buu rabay wuxuu rabo waa fasaad dadka inuu isku diro oo ummadda ka dhex shaqeeyo waaye inta badana been buu wadaa marka isku namaam haddaad aragtid nin war kuu keenaya iyo gabar iyo waxay doonta ha noqotee iyo koox ha noqdaane waa fasaad bay la socdaan marka arrintaasi arrin xun oo ceeb ah oo dembi ah oo aad u liito waaye mujtamaceennana waa taan sheegnay aad buu u baabi'iyey waxaan ku soo gabagabaynaynaa intaan la gaarin cadaabka weyn ee aakhiro inta barzaqa uu ku jiro qabriga lagu cadaabaya nabiga sallallahu alayhi wasallam baa biqabrayni laba qabri soo maray faqala innahuma la yu'adhabani labadan qabri waa la cadaabaya labadan qabri waa la cadaabaya mana loo cadaabayo dambi weyn looma cadaabayo midkood waxa uu ahaa midaan iska asturin kaadida midaan iska asturin buu ahaa oo kaadida laba jeer weeye labada jeer ugu daran marka hore oo aad kaadinaysid waa inaad iska ilaalisaa faniinkeeda marka labaadna waa inaad kaadida inay ka dhamaatay aad xaqiiqsataa kadibna aad iska dhaqdaa ama aad iska tirtirtaa waa labadaas nooca ugu daran kaadida markaad kaadinaysidna waa inaad iska ilaalisaa markaan dambe kaadida ay ka dhamaatana inaad xaqiiqsato waaye kadib baad iska tirtiraysaa ama iska dhaqaysaa وأما الآخر متك كلا وحوجر النبي صلى الله عليه وسلم لعذابه فكان يمشي بالنميمة اسكو دردر بولا صعدا dadku ayuu isku dirdiraa qabriga lagu cadaabi inta aakhire la gaarin iyo naarta weyn aan la gaarin cadaabkaas u socdo adilla badan ayaa ku soo aroortay namiimada oo la isaga digay waa akhlaaq aad u xun oo mujtamaca ku faafo u baabiinaya qofka iyo labada qofood iyo kooxda iyo dadka waxaas wadane u baahan in laga hortago Soomaaliduna waxay dhahaan qof kaste oo war ku keenay war buu ka qaadaya iska ilaali وقاعدة كلية وهي ساس لأجل إن شاء الله تعالى خطبوين كلنا وان كجا هذي الدونا اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على عفو تحب العفو فاعف عنا إلهي ودبينا دبي والدكنا ضاف إلهي يقولنا حريص أنت دمت والدكنا إلهي يقولنا حريص أنت دمت علماءنا إلهي أبعرت عذرك النقد القات إلهي فقري علادا نقد القات إلهي النبتقلية النسي إلهي أخلاق في عن أو وناكسن نقو إرزاق إلهي كو الدين تقول رقم كتوسن نقدك إلهي نودن بداف إلهي قولي مسلمين تا إلهي مسلمين تا قولي إلهي مسلمين تا لقود إباتينا فلسطين لقوذوميي لقراعي أدونك قال هذا سقوط تكتي مسلم كان أمس إلهي أقرقار إلهي أديك أقرقاري كلا أقرقار أو بدنا أديك ظالمين قال بايسوغو تكتي مسلم كنا wax u hiliya gaalada iyo wax ka aamusa iyo wax gacmaha qabtay noqdeen ilaahay u hili ilaahay dadka masaakiinta ah ee la suugu tagay adiga awood badana u hili imtixaan annaga nala imtixaanaya kibirka ay kibreen gaalada tusaale weeye ugu filan inay dadkaas yar oo kooxda ah ee muslimiinta ah la suugu tagay ayagoo Baytul Qudus iyo xaramkii saddexaad ee muslimiinta rabo inay qaataan difaacaya ilaahay oo guulay wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi